keep it. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري كسو دوادا سومالي أرسنال فانس تي في هدي أنا لسعوتي أخياري هدي أدومان سانتهاي هدي هذا نوصل بيرتين هنجي لون سبسكرايب كا فيديو سيو جارو أخيارتا جعل ciyaaraha haddaba maanta waxaa ka hadli doonaa arrimo dhowr ah. Premier League ayaa bilaabanayo afar maalmood kaliya ayaa ka dhiman. aad ayaan ugu faraxsanahay. Gameka ugu horeeya Arsenal waxay leedahay Friday habeenka Jimcaha waxayna leedahay Crystal Palace. Saacadii arrimo dhowr ayaan falanqeyn doonaa ku saabsan gamekaas. waxaan ila joogo maanta saaxiibkii Sparky waa daalaal aniga ma fahanteen wax badan waa arki doontaan. hase ahaatee aan ku bilaabno Tomiyasu oo injurigiisa si full ooga soo recover gareeyay kana soo noqday. saaxiibkay waxa weydiinayaa Tomiyasu maadaama hadda uu ka soo noqday injury fullna uu yahay ma ciyaari karaa gamekaas aan Crystal Palace aan la leenahay habeenka soo dhowaa. waa dhowahay ciyaarta haddii aan ka hadlo Tomiyasu iyo right back kale oo haysan waa Cedric. waxaa jirta mid kale oo alternative ah Ben White. so ciyaarta Tomiyasu waa loo baahan yahay maxaa yeelay Crystal Palace waa dad aad u waaweyn oo xoogan. Zaha iyo dadkaas waa dad xoogan ayaga dhan waa dad builders ah leedahay. marka waxaa ka cabsanaa Ben White iyo Cedric inta lagu soo tuuro la dabagdiiba ayaga dhan. laakiin hadda gameka u dambeeyay oo Sevilla aan la ciyaaraynin waxaa dhilahay Ben White oo aadna u fiicnaa some good passes waa drop gray maalin asaga dhibka jira wuxuu yahay tiimashan Premier League waa Lisboa Zaha uga baqaysa ninkan. Zaha waa Lisboa meesha Kuyate dad waaweyn waay. nin degan oo Bruno fiirsanayo maaha nin kale ma anfaca. marka Tomiyasu gamekaas waxaa dhilahay inuu soo bilaabo teeda kale arinta kale xigta waxaa weeyaan xagga difaaca Arsenal they have been solid tripkan waxaana gadaal dheelay Gabriel iyo Saliba maxaa ka leedahay isna maxaa leedahay drop gray mise gameka waa inuu kusoo bilaabo maadaama hadda favorite uu u yahay taageerada Arsenal. Saliba runtii ani Saliba ma qabo in lagu soo bilaabo. hadda waxaa qabaa Ben White in lagu soo bilaabo. dadkaas xoogaa muddo soo faasanaayeen. Saliba waa good sub way nin fiican oo Bruno si fiican ciyaaraha oo xoogan. haddii hadda lagu soo bilaabo dhib ma qabo laakiin aniga waxaan leeyahay aragti ahaanteeda Ben White lagu soo bilaabo. sababta waxa waaye dadka oo na gaarsiiyay waa meeshaan. marka waxa waaye uu qalmaa in Janiska la siiyo inta aan player kale laga hormarinin. marka Saliba waxaan leeyahay dagaal cusub inuu diyaar u ahaado waaye maahane Ben White hadda loo drop gareynaa Saliba oo hadda meesha ka soo noqday waa ka fiican yahay. we cannot assume waxyaaba noocaas macnaha waxa waaye imagination wax la jirto. marka Premier League markii la tago oo maaragtay oo chances oo helo Ben White ku fiicnaado Saliba u fiicnaa asaaba galaayo sida hadda Leno kala qad uga baxay kana qadku ka baxa ay soo adkeeyay marka laakiin ani waxa Ben White taa waa ogyahay inuu under competition oo yahay waxa marka xilligan la joogo asada waa dadaal oo ogyahay hawada la isku cunaa. kulli competition ayaa jiri doona hase ahaatee sidii hadda fanska ay jecel yihiin waa in lagu soo bilaabo Saliba. anina saas arkaa waayo that Brazilian connection waxa waaye waa unstoppable. mana aqaan Premier League wuxuu ku sameyn doonaa laakiin hadda ciyaaryahanka already wuxuu eegay inuu fiican yahay. Saliba say Gabrielna good partnership ay leeyihiin. marka William marka isagana arintiisa xagga oo gudbeena arinta xigta ayaa waxay tahay ma winkareen doona ma ka badin doona Crystal Palace oo ogtahay seasonka hadda in wadana dhigaha naga soo garaaceen keenana ay halisna gidiyeen oo saaka xitaa la darbiyay Arsenal ciyaaryahanada waxba aan loo reeban oo hal gool oo sakaraad aan ka helnay last minute oo la gasay 3-0 ku dhamaato gameka ugu dambeeyay. Crystal Palace waxaa sheelay tokadan waa ka badinayna maxaa yeelay aad u diyaarsanaa sanadka hore waxay ka koodahay tiimasha ugu horeeya ee naga reebay Champions League marka ciyaaraha dhamaanayeen. marka hadda badileen gamekaas ama gameka Brighton ama Southampton waan galeen even haddii nagala badilahay Tottenham iyo dana tumileed ma aragtay ee wana tuntaba waan galeen. so Crystal Palace waxaa leeyahay tokada waa garaacina maxaa waa ka player fiican in terms of quality markii loo player ahaan baante
alaf waxaa jirta oo kale seasonkan aad u diyaarsanaa waxa uu ku furaynaa oo diyaarsanaan player fiican furan isfahansan tika tagti Wenger la soo celiyay meeshan Arteta wax kale u ciyaar weeyaa hadda marka aafir soo kale horay forward ka Arsenal Gabriel Jesus waa hat-trick loo wataa ninkaas waa hat-trick lima ne fiican waa connection player waxa waa maaragtay soo doonaa garbaha adaa dhinacan ka baxay xag ka baxay oo maaragtay dhibaayo maaragtay dadka oo dhaxa ma ciyaaraan oo maaragtay difaacada ciyaaraan ma isdii kala ninkan striker miya garab miya meeshu ka imaana ma garanayo oo ku wareerayaan ku wareerayaan sida Haaland oo kale hadda lagu qasaaray maaragtay iska taagan lagu ma qasaaray arrin ciyaaryahan lagu qasaaray ilaa hadda waxba kama arkin laakiin waa arki doonaa xaasiska friendly Liverpool Premier League daraad hadda ciyaartii oo ayaga Liverpool ay dheelahayeen oo kaleete inkastoo ay iska ahayd community shield haddana waxaa la oran karaa inay lose gareeyaan asaga sida uma inkastoo Janis fiican uu gafay laakiin dhanka oo ciyaarta City ay kuwaaga ay ka ahayd dhanka Grealish ma Grealish kiima waxa la player inuu teamka maaragtay oo markii la ciyaarayo inuu qayb ka yahay halan qayb kama baahan ba iska taagna striker taagan meesha Premier League waa Lisboa adoo taagana Lisboa wild dog baa leedahay kuwan inta kiima dadka okay awsa noqon Arsenal marka midfieldkeeda Xhaka iyo Partey hadda ka hor qabkay Xhaka iyo Partey solid waa dadkaas hadda waxa waad kala Xhaka waxa is leedahay hadda gool inuu xiro waa leedahay waa darbeeya box ku taagaya preseason gool waa oo raadinayo hela umaleeyaa hadda teamka uu ma meesha ka Zola iyo uu ma oo hela umaleeyaa hadda digada kaare Partey naga jiro Martinelli Jesus oo xira maanta dhan Saka waa hadda Bruno iska salaam marka waxa leeyahay Xhaka waxa waa midfielder fiican waaye wiilne suuqa waa lagu jiraa Tielemans kasi jeclaanaa in la keeno Vapi waa sii jooga competition waxa la rabaa teamka ninkii la soo siiyo hal mar in laga booska laga xayuubsado si maaragtay looga yaabo so Premier League tookada meel fiican gaarayna wallahi ana hadda ma ku fikirayo macnaha waxa top 4 iyo waxaas maaha so marka aragtiin bas qaabka u ciyaaraan waxa waaye I cannot think less than winning something baade ina wax badina ma badis ma ina wax qaadno koob qaadno ma wax kale kuma fikiro which means title contenders anaha koobka barabnaaba tookada waa sanadkan waxa leedahay waa yaay celiyo ma City ya barabaaba ina jajabsano iyo Liverpool hawada ka saarno sanadkan horta marka aad fiiriso Premier League competition ayaa jiri doono oo hadda teamki lixda team oo waaweynaa Chelsea waxaanan ka ahayn Chelsea hadda ayadana isdhisaysa waxa isdhahaysaa Liverpool inkastoo ay ku xumaayeen xogaa pre-seasonka xoganta Liverpool laakiin waa xogantahay waa dagaalami doontaa City sidoo kale iyaduna waa diyaarsan tahay Man United by the way ilaa hadda waxay rabtaan la garan leeyahay Man United akaada labo dalmo jaalina la gool bayra kasi taw dalanda Tottenham ka fiican labada waada soo dhistay Kulifiski iyo Perisic balaaga fante Tomia dhinaca left back Arsenal competition qurux badan ayaa hadda ka jiro waxa soo kacay Kieran Tierney xagana waxa Arsenal show waalan hadda u dhigahayo Alexander Zinchenko yaa hari doono yaa la reebi doono yaa la qaadan doona meesha yaa ku hari doono waxa waaye su'aal aad u fiican su'aashaas koo dheh dhinaca left back waxa waaye hadda waa laga shiday labada player midba meel ku fiican hadii la dhaho qaab ahaan difaac hadii la dhaho teeni nin dadka lagu hayo mu daawada leedahay marka meeshaas ku fiican laakiin ninka Zinchenko asna waxa waa ninkaas bola waaye dhaxdo imaana waa paasa waa weerara soo hadda Crystal Palace maaragtay marka la ciyaarayno Zinchenko no ciyaarano sababta team moorabno inay maaragtay mentality difaac inay lahaadaan gool la rabnaa ku rafaadeen difaaca Arsenal gaash inaa sidii Wenger oo kale waxa arta bunu iska haysato soo dhaliya baxa soo dhaliya shakalaayna jirto marka Zinchenko teeni waa player aad fiican waaye Zinchenko waa bola waa new position ku fiican game shakala hatta kala hadii lagu soo bilaabo maaragtay teeni hadii lagu soo bilaabo game gan oo Crystal Palace will not surprise me miga yaabinayso ma fahmino waa caadi waa mid ku qanacay sababta Crystal Palace dad bola waa xoogan ma fahmino Anthony dadkaas in la celiyo waa sax ma fahmino waa gartay fiican hadii Zinchenko lagu soo bilaabo waa dareem kara waxa Arteta wuxuu leeyahay gool ina xirna rabnaa hore u socono marka waxa meesha dib weyn ma jiro
marka hadda waxaa leedahay siday ku socoto hadda Zinchenko waa sii bilaabo si ninkaan competition haylo Zinchenko inuu bilaabo qabo sababtoo teen hadda soo dhacay injury in lagu bilaabo qabo waa garanay asxaabay showgeena maanta intaas ayuu ku ogyahay Arsenal waxay haysataa some winnable games gamekeeda ugu horeeya waxay la leedahay Crystal waxa uu xigtay Leicester City Bournemouth Fulham Aston Villa game isdhihi karno way garanaysaa oo way ku guuleysan kartaa game-kooda waa Crystal Palace Crystal Palace oo adag Aston Villa game-ka shanaad isna xoogaa iska tasty laakiin Arsenal tripkan waa diyaarsan tahay marka wax badan akhyaari waa ka hadli doonaa game-ka prediction-kiisa iyo line-up-ka ay ciyaaryahanada Arsenal ay ku soo gali doonto marka nala socda subscribe-ta wax walba lagu ilo meesha ayaan lagaga tagin aan laga wada hadlin arrimahaas oo kale. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.